عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي ونكسن رمضان الكريم. maanta waxaan idin warta asxaabay barnaamij u soo duubay ninkii Abaan Shaaficiyaha oo ah barnaamij aad u wanaagsan hadana meel fiican taabanaya kuna saabsanaa nadaafadda si barnaamijku hadlay aan oo aragnay deegaanada ra'yiga ka dhiibtay ma garanaysaa horta intaan sii gudagelin aan sii falanqeynin bal marka hore qaybaha hore ila daawada bal جدا حديد ضمانة الجري وإلا حاجة الجامعة كده ما كنت نضطر ضدك هل قلت له حلك ولا عملوا أي كلوريك تاي وحكى ما نكره كتير يا أمس ما رحت حالضوا يعني waxaan marka ugu baaqaya deegaanka dhow wada dadka jooga qof kasta inuu ka xaaqo shirkadaha qashimada ama sahan noqoto ma garanaysaa waxay maaragtay xoolaha ama ma garanaysaa iyada ilaa dadka kale waa in kana la nadiifiyo si caafimaad badbaado u helno ilaahay baa caafimaadka bixin kara laakiin waxaan hadda idin sheegay hadda waa intaan waxaan kale mas'uuliyad ma ahan xalle sida loo wixii ma garanaysaa baraagihii iyo kanaaladii iyo meelihii biyo soo mari lahaayeen wixii waa in la nadiifiyaa nadaafad la'aanna kulli waxay la tahay marse waxa ka iman karta caafimaad darro kulli waxa badan nadaafad darrada ka dilaa waxa kamid ah baashan bakteeriyada kaloora ama isdaacun sa u taqaanaan bal inta kale aan si wada dhameysano marka insha Allah waa ka faa'iido doontaan deegaanka ra'yigiina waa dhankiina waxaan kale mas'uuliyad ma ahan xalle sida loo nadiifin lahaa laga shaqeeyo deegaanka maantiin dadka dhan wada u kac hadda u jeedaan sida kanaalkaas loo sameeyo kale waa in loo xaqaa kadaan hadda wax dayr ma lahan mas'uuliyadna naga saaranta xaaladdan waa faafaysaa deegaanka ku faafaysaa hadii ay maaragtay yeelato markadan biyo galaan dadka bakteeriya ka raacdo marka waxaan ugu baaqayaa saakay dadku inkastoo dad iska reebaadiyeen xaaladda caafimaadka wax ka iman karana aysan ogeyn inaan u sheegno deegaanka waa ku qasbanaa wixii iman kara ilaahay wax badbaadiyay oo deegaanku ku badbaadi karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasaan ku soo dhaweynayaa horta Shaafici waxaan ku sheegay ma garanaysaa marka tahay qof horta dad wacyi gelinaya ama wax u sheegay hadana dhiisha gelinaya umada qofba wuxuu ku leeyahay qof ra'yigiisa qof si wuxuu arkay ma garanaysaa qof in wax laga yaabo ka amaano oo ku dhiisha geliyo ku yiraahdo hore soconay in wax qabanaya tahay kan kale ahaatee u yiraahdo kan xunka qofkan waa iska hadlaya inaga day asagana u qabanay waxa uu ku leeyahay asal Turkiga dhiisha gelin bay ku noqonaysaa in ay xagata ma ahan wax ka sheegta ma aha la dad ma ahan إن شاء الله هرو صوتك هرو وات waxaan ku leenahay ku dhiisha gelinayna ma ahan waxaan ina ka shaqeynaysa ma ahan dhiisha gelinta waxyaabo badan soo dubto waan ku arkay in deegaanka soo qoonay tahay inuu hore soo ku leeyahay hore soo in badan asxaab waxaan ii sheegay ma garanaysaa qofka aan noo shaqo hadaan dhiisha gelin oo waxba aan dhihin aan ka aamusno adeelidna horta soo wax noo qabanay weeyaan qofkii bulshada kaga soo horta qofka aad doorato inuu wax ku qabanayo ma ahan kaligiis mid waxa laga yaabaa ku soo kacay waxa xil ku heen aad xil dhiiban inuu ku joogo uu jecel yahay inuu ku shaqeeyo wadankiisa u shaqeeyo hadana meesha joogo u shaqeeyo dalkiisa u shaqeeyo horta Abaan Shaafici wuxuu ka hadlo waxa u banaa nadaafadda ahayd horta nadaafadda lagu dadaalo in badan nadaafadda lagu dadaalo shadowanda waxaan leeyahay horumarka lagu dadaalo dhamaantiin waa jecelnahay waa taageernaa hadda hore socod wanaagsan wax qood wanaagsan asxaabta kan xalay dhamaantiin aad baa mahadsantiin sidaasii nabadgeliyo xiriirigana commentiga nagu reeb intaan ka xiiso badan insha Allah waa idin soo duubi doonaa